Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada sheeko yar oo ku saabsan halyigii muslimnimada ku dhintay Maxamed Cali Kalay. Markii ay da'diisu ahayd 12 sano jir ayaa uu qof ka xaday baaskiiladiisii. Kadib Maxamed waxa uu kiiskaas u gudbiyay taliska booliska, isaga oo la kulmay madaxa laanta amniga oo magaciisu ahaa Gio Martin, kaasi oo tababare ka ahaa meel lagu barto feerka lagu magacaabo Colombia. Isla markaasi Maxamed Cali waxa uu u sharaxay wax kasta oo ku saabsan baaskiiladiisii laga xaday. Ugu dambeyn Maxamed isaga oo u sii raaciyay qofkaas iga xaday baaskiilada gacanta ayaan la tagi lahaa haddii ay indhaha qaban lahaayeen. Laakiinse Martin ayaa uga jawaabay, ugu horreyn inta aanad qof la dagaalamin soo baro feerka. Maalmo yar kadib Maxamed Cali waxa uu tababar ka bilaabay isla meeshii uu ka ahaa tababaraha Gio Martin, isaga oo ku dhiiraday inuu barto sida dadka loola feertamo. Maxamed Cali waxaa loo sheegay inuu ka fogaado waxyaabo kasta oo ka hor istaagaya inuu barto sida dadka loola feertamo, waxaana ka mid ah cabista sigaarka, cabista khamriga iyo cuntooyinka culus. Maxamed Cali waxa uu noqday mid ay xirfadiisu soo shaac-baxday sanadii 1960. Waxa uu guuleystay 29 ciyaarood xitaa isaga oo laga badin hal mar. Waxa uu ku guuleystay feerka culus sanadii 1964, isaga oo noqday midkii abad ugu yaraa ee gaadha darajadaas. Maalintii ku xigtay waxa uu bedelay magaciisii hore oo ahaa Cassius Clay, waxaana uu shaaciyay inuu isku bedelay Islaam. Inkasta oo bulshada intooda badani ay ku farxin warkaas ka soo yeedhay Maxamed Cali Kalay.